بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلهي بقى مهد سبحانه وتعالى maanta oo ay taariikhdu tahay labaatankii ramadhan na soo gaarsiiyey naguna soo gaarsiiyey annagoo caafimaad qabna sooman bishii ramadhan. waxaa muhiima marka walaalayaal waxaa bishii ramadhan ay maraysaa meeshii ugu qiimaha badnayd. nebigu calayhi afdal salaati wasalaam tobankan maalmood ama tobankan habeen aan idhaahno bisha ramadhan ugu dambaysa si gaara iyo u maamuusi jiray rasuulku sala allahu calayhi waaalihi wasalam. caaisha radia allahu canha waxay leedahay rasuulku wuxuu ahaa sala allahu calayhi waaalihi wasalam marka ay soo gasho tobanka habeen ugu dambaysa bisha ramadhan wuxuu samayn jiray kow ahalkiisuu toosin jiray, labo nebigu waa dadaali jiray, habeenkiibuu noolayn jiray, guntiguu adkaysan jiray. xadiidkii imaam bukhaari iyo muslimba ay soo saareen. nebiga calayhi salaatu salaam marka la leeyahay oo caaisha ay noo sheegayso sidaasuu u dadaali jiray tobanka habeen ee ramadhan ugu dambaysa. waxaad ogaataa nebigu dembi ma uusan lahayn, dembigiisii hore iyo kii dambeba nebiga waa loo saamaxay oo waa loo dhaafay. waxaa la rabaa innagaa dunuubtii naga badatay in aynu marka ka faa'iidaysanno tobankan habeen ee ugu dambaysa ee caawa ay kow tahay walaalayaal bishii barakaysaneed ee ramadhan inaan si aad ah uga faa'iidaysanno. caaisha waxay leedahay mar kale radia allahu canha rasuulku wuxuu u dadaali jiray yajtahidu fi lcashri alawaakhiri maa laa yajtahidu fii gayrihi. xadiidkii imaam muslim uu soo saaray. rasuulku u dadaali jiray tobankan habeen ee dambe ee ugu dambaysa ramadaanka si uusan intii kale labaatankii kale ee ramadaan uusan ugu dadaali jirin yuu nebigu ugu dadaali jiray. waxaa marka xusid mudan tobankan habeen waxa ay ama tobankan maalmood ama habeen ugu dambaysa bisha ramadhan waxay leedahay waxyaabo khaas u ah oo cid yani habeenada kale aysan la wadaagin. waxaa ka mida marka waxyaabaha ay tobankan habeen ay khaaska la tahay oo yani fadligaa weyn loo siiyey in tobankan habeen uu ku dhex jiro habeenkii lagu magacaabayo laylatul qadarka ee ka fadli badnaa ama la oran karo habeenada uu ilaahay abuuray waa habeenkii ugu fadli badnaa waaye sida naska qur-aanka ah uu tilmaamayo iyo sunnada nebiguba calayhi salaatu wasalaam. waxaa isweydiin la marka habeenkaas ku guda jira tobankan habeenan caawa noo bilaabanaysa maxaa loogu magacaabay habeenkan laylatul qadr. waxay culummadu leeyihiin waxaa loogu magacaabay habeenkaas shaniga uu leeyahay iyo fadliga ilaahay agtiisa uu ku leeyahay baa wax aad u weyn oo aan la suuraysan karina. kow labo habeenkan waxyaabaha loogu magacaabay laylatul qadr waxaa ka mid ah habeenkan waxaa la jaangooyaa sanadka yani waxa weeyaan maqaadiirtii sanadka oo idil hadday noqon lahayd ajashii qofka cimrigiisii, hadduu noqon lahaa arsaaqduu quudan lahaa, yacni hadduu wanaag samayn lahaa iyo shaqi hadduu noqon lahaa, intaba habeenka la jaangoynayo oo waxa weeyaan la xukumayo waa habeenkaas laylatul qadarka ee ku jira tobankan habeen ay caawa noo bilaabanaysa. lidaalika ilaahay wuxuu leeyahay fiiha yufraqu kulu amrin xakiim. khasaa'ista uu leeyahay ama habeenadan ay leeyihiin waxaa ka mid a ama habeenkan laylatul qadarka waxyaabaha uu la gaar yahay waxaa ka mid a qur-aankeena kariimka ah waxyiga samaawiga habeenka la soo dejiyey waa ina anzalnaahu fii laylatin mubaarakatin buu rabbi yidhi waa habeen barakaysan oo habeenkaanu qur-aanka soo dejinnay waa habeen barakaysan buu leeyahay sida ay suuraddii kale lagu bilaabay ina anzalnaahu fii laylati alqadri buu rabbi yidhi. ibnu cabaas radia allahu canhu wuxuu leeyahay
قرآن كريم كجملة واحدة يسقو إسوة كلجي يا وحلو سودتشي سماء الدنيا بالله كيري هبينكي ليلة القدر كأحد مركزو هاد سيدا حاجة يباهدو تاي يا النبي قال لما تنصر مركا قرآن كي السماء الدنيا انت لغا سو قادو با ان ير نبي قال لوغو سو دجينايي سو الله وليه وقرآنا فرقناه لتقراه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا اذا مركا وحا مركا رنتي وح لغا تيرانيودا إلهينا هنغا بدباديه هبينكاس قف مسلم قرتي قيمة هبينكا وليهي هدان إنو اسكا سيحدو يعني أكتي سنة وح مهمة أوسن كنقنين أو كفا إذا يسوى فرصة قالقة أو قفكا لغاية بنولشي سبا إنيسان مردن بابا كسو الله بنين أو أيسان دب أوسن نقنين لذلك رسولكم عليه صلى الله عليه وسلم هبينكاس خير كيسا قفكا لغا حرمانيو لغا هر استاغو والعياذ بالله قفكاس خير او دان يا قفكا لغا هور استاغي ولا يحرم خيرها الا محروم هبينكا خير كيسنا لغا هور استاغو قف هوغي او خساري او waxa dhul darsaday mooyane habeenkaas marka walaalayaal runtii waxa xusid mudan qofka hadii maanta la yiraahdo 83 sano iyo waliba bilooyin noloshaadi baahidaada adduun dhan baa lagu dabooli waxaad cuni lahayd iyo waxaad xidhan lahayd iyo meesha dagi lahayd noloshaada oo idil 83 sano waa lagu kafaala qaaday halkaasay kaliya waxa laga baahan yahay hadii qofka la yiraahdo 10 habeen dadaal inaad samayso waxaad ku helaysaa abaal marina in aad noloshaada wax dambaadan u baahan muddo 83 sano qofka tasawur marka adiga qiimee qofka sida lagu yiri dadaal inta leeg buu ku bixin lahaa 10 habeen inuu seexdo daqiiqad saacad maaha daqiiqadana hal ilbiriqsi inuu marka dhaafo qofkaasi wuu ka dadaali lahaa wuuna ka taxadari lahaa hadii marka lagu yiri ka waran dambigaagiina waa la dhaafi يعني وحلاله iyo habeenkaasna 83 sano amal aad sameyn lahayd waxa weeye habeenkaas hadaad ilaahay uu ku waafajiyo 10 habeenna ku jira ayaa waxa weeyaan kaaga khayr badan hatta lama oran uu la mid yahay khayrun min alf shahr bu Allah tabaaraka wa taala kun bilood waxaad sameyn lahayd oo aysan ku jirin kun bilood oo uusan habeen laylatul qadr ku jirin ayaa kaaga khayr badan yani waxaad sameyn lahayd ala kulli xaal marka runtii waa arin aad iyo aad muhiim u ah ay culimadu leeyihiin habeenkan darajada uu leeyahay aqliga bani aadamka ma tasawuri karaayo arintaasna wala ya'lamu bihi illa 'allamul ghuyub ilayhi culimadu habeenkaas yani ajaa'ibta iyo khayrka qof garan karo aqligiisa ku tasawuri karaay ma jiro alla baa garanaya subhanahu wa ta'ala idan marka walaalayaal waa fursad ummadda muslimiinta ah ilaahay ummadda muhammadiyada uu ku khaas yeelay way maadaama sida sheekh culimada muslimiinta ay leeyihiin ummadani cimrigeedina uu yar yahay يعني awoodeeduna ay gaaban tahay ba ilaahay tabaaraka wa taala wuxuu siiyay marka habeenkan ka khayr badan yani waxa dhowr iyo 8 sano wax allaali waxad sameyn lahayd oo taaca khasaa'ista uu leeyahay waxa kamida malaa'ikta ya habeenka soo dagaysa malakul jibriil ba soo dagaya lidalika waxa uu leeyahay rasuulku alayhi salaatu wassalaam malaa'ikta soo dagaysa badnideeda يعني آد بي أفر بضنتها رسولك تلمامي عليه الصلاة والسلام تنزل الملائكة والروح فيها هبين كان حديث يسود دقيسا مركا هذا مركا عديق كفا إذا يسنويدو سو خسارة معها الرنتاس مركا إله نقبت باديو وخسارة وحوية رنتي خسارة أيسان كدن بيرين مديرا لغو عيمي انتاسو عمال مرين والغو شاقي cimrigaago dhanba waxaad samayn lahayd hadii lagu yiri intaas kaaga khayr badan inaad marka ka faa'iideysan weydo nabigeena kaleey afdal salaatu wasalaam muhammad isagoo dunuubtiisa oo dhan la dhaafay iyo habeenkaas noolayn jiray ahya layla habeenkii boo noolayn muxuu ku noolaynaya qiraa'atul quraan dhikri iyo moogtahay qiyaam iyo taaco alle bal kaligi muuna samayn jiray nabiga sallallahu alayhi wasallam muusan u ogolaan jirin xaasaskiisa
caruurtiisa ahalkiisa uu kicin jiray inay jiifaan uma ogolaan jirin maxaa yeele fursada hadday dhaafto yaa garanaya dib inay ugu soo noqonayso waa uu kicin jiray marka nebigu sala allahu calayhi waaalihi wasalam reerihiisa iyo ahalkiisa marka waa arrin weyn wey lidaalika uu rasuulku mar kale xadiidkii mutafiqa wuxuuna leeyahay qofkii habeenka qiyaam u istaaga ilaahay ishortaaga waa habeenkii leylatulqadrki tobanka habeen marka adiga haddaad qiyaamkii wado shaki waxaanan ku jirin inaad habeenkii aad la kulmayso lidaalika rasuulku yidhi man qaama laylata alqadri habeenkii leylatulqadarka qofka qiyaam istaaga salaad u istaaga alla ishortaaga iimaanan waxtisaaban wuxuu rumaysan yahay ilaahay abaalmarintiisa wacdigiisuu rumaysan yahay wuxuu ka ajar dalbayaa ilaahay tabaaraka wa taala yani abaalmarin uu ku siiyo ictisaab uu ajar gurbisanaya qofkii sidaa yeela nebigu wuxuu u ballan qaaday oo uu yidhi gufira lahu qofkaas waa loo dhaafi maa taqadama min dembihi dembigiisii wixii hormaray oo dhan qofka waa laga saamici dabcan waa saqaa'ir dunuub waay dunuubta yaryar maxaa yeele dunuubta waaweyn waxay u baahan tahay tawbay u baahan tahay qofka inuu ka toobad keeno waxyaabaha laga doonayo habeenkan aad ugu dadasha waxaa ka mida ilaahay ha arko khayr badan dadaal ha kaa arko qalbigaaga ha arko inuu ilaahay u baahan yahay baahi waa inaad muujisaa ilaahay waa inaad yani barida ducada waa wax weyn waaye waa madanat lijaaba waaye habeenkaas qofka in laga ajiibo wax allaale wixii khayrahu ilaahay uu ka baryo arintaasi waa aad bay ugu dhowdahay lidalika caaisha radia allahu canha baa waxay tiri rasuulka wuxuu ku rasuulkii allow haddii aan habeenkaas aan ilaahayba ii waafajiyo maxaan idhaahdaa oon ku ducaystaa rasuulku wuxuu yidhi waxaad tidhaahdaa caaishaay allaahuma inaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu canii ilaahay cafis iyo dhaafitaan weydiiso ilaahow midka wax cafiyaad tahay cafinta wax cafinta iyo saamixidda iyo dhaafidana waa jeceshahay facfu canii ilaahu iyo cafi sidaa dheh lidaalika marka inaad ilaahay barido wax badan ood baahidaada adduun iyo midan yani baahidaada aakhirad u baahan tahay inaad ilaahay weydiisato arintaasi aad iyo aaday muhiim u tahay imaam nawowi wuxuu leeyahay waxaa mustaxab ah habeenkaas in aad baryada iyo qiraa'at lqur'aanka iyo adkaarta inta istikfaartii takbiirtii taxmiidii wahalumajar adiga waktiga yuu ku ciilin inaad fursadda qaabka uga faa'iidaysa adduun iyo yani waxa weeye qofku wuxuusan ka faa'iiday sufyaan athawri wuxuu leeyahay adducaau fi tilka alleyla habeenkaas inaan ducaysto oo qofku uu ducaysto axabu ilaya min asalaati xataa salaada waxaan ka jeclahay habeenkaa ducooyi alla baryo inayna wado oon gacmaha intaan ilaahay yani u horsado yani aan idhaahdo allah waxa isii oo ducaysto qofku wuxuu jamcin karaa marka salaadii quraan akhriskii ila salaada dhexdeedu qur'aanka ku akhrin ducadii salaad dhexdeedu ku ducaysan waliba sujuudi waxaasoo dhan buu isku darsan si marka ilaahay tabaaraka wa tacaala qofka markuu arko yani ilaahay markuu qalbiga arko inaad u baahan tahay oo dadaalayso ilaahay tabaaraka wa tacaala waxaa yani fadligiisa waasic waaye inuu abaalmarintii iyo wanaaggii marka uu ku siiyo nebigu marka sala allahu calayhi waaalihi wasalam waxyaabuhuu samayn jiray waxaa ka mid a isagoo habeenka qiimaha badan raadinaya yuu marka la gaaro tobanka dambe ee ramadaan masaajidkuuba dhex fadhiyi jir maba ka bixi jirinba ictikaaf ma ka bixi jirin masaajidka kaana yactakifu fi lmasjidi sala allahu calayhi waaalihi wasalam muxuu u ictikaafi nebiga sal slam wuxuu u ictikaafi inuusan wax kaleba uusan ku mashquulin masaajidka uu fadhiyo maruu quraan akhrinayo maruu waxa weeyaan xus iyo dikri alle uu hayo maruu yani fursad adduun iyo mashaaqilkiisaba qofka inuu waxa weeye banaanka uu ka maro masaajidkii hadda lama ictikaafi karayo marka oo dee gurihii ma lagu ictikaafi karayo mana ku ansaxayo idan marka waxaa la dooni in lagu nooleeyo qiraa'at alqur'aan iyo dikri iyo wahalumajar iyo baryada alle iyo muslimiintao dhanna arintaasi waxa weeyaan aad bay qadiiman wa xadiian aad bay ugu dadaali jireen in macnaa fursadaas aysan marnaba aysan dhaafin waxaan marka rabaa inaan muslimiinta guud ahaan aan idhaahdo runtii waa maalmo kooban waaye bishii ramadaan o dhan baa waxaa la yidhi ayaaman macduudaat buu ilahay ku sheegay waa maalmo tirsan waaye inay tirsan tahay kooban tahay waxaa ku tusaysa 20 cishaana dhaaftay ama 20 habeen
haddaad dib u fiirsato u eegto ugu baraarugto wax yar bay kula tahay tobankanna way ka sii yar tahay waana meeshii ugu qiimaha badnayd in marka laga faa'iidaysto looga faa'iidaysto wax walba oo cibaada ilaahay hana waafajiyo tabaaraka wa tacaala rabbana إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى إله هبين كان كتيرة طبعا كان دنبي عاون نوب الله بنيسا خير كيسا يا بركة ديسا إله النوافج النجا يا أهل كينا يا أولاد دينا يا مسلمين تودن إلهي تبارك وتعالى هو وافجيو إنه كفى إذا يستان رنتي فرصة دان قالقا وح الله دقو أي سنشرين إلهي توفيق ده النوافجيو وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته